Erayada ku saabsan xaaladda degdegga ah kuma filna in ay sharaxaan waxa ka dhacaya Mareykanka xilligan. Lama arkin rabshado jinsiyadeed oo sidan u ballaaran tan iyo markii la dilay Martin Luther King sanadkii 1968. Haddii aynu muuqaaladani aynu ka dhigno madow iyo caddaan, waxay u ekaanayaan kuwii lixdameeyadii. Dadka u dooda xuquuqda ayaa waday sharci lagu soo afjaray kala sooca dadka Mareykanka, iyagoo xaq u helay in ay codeeyaan dadka madow ee Mareykanka ah. Laakiin hawshu ma dhammaan. Arxan-darrada booliiska mar walba way adkayd in sharci laga soo saaro. Dadka madow ee Mareykanka ah marnaba ma helin sinaan xagga mushaarka, oo ah dhibaato ilaa maanta taagan. Xanuunka cunsuriyadda muddo ayuu taagnaa. Waa dhaawac markii uu bogsan rabo, haddana mar kale ay dhacdooyin dib u damqiyaan. Waa wax hadba halkoodii dib uga soo bilowda. Laakiinse su'aashu waa intee in la'eg ayay dadku u dulqaadan karaan? Dad badan ayaa filayay in doorashada madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ay dhayi doonto dhaawaca dadka madow. Laakiin Barack Obama marnaba ma doonin inta xafiiska uu joogo in lagu qiimeeyo midabkiisa. In uu madaxweyne noqday kama turjumayn xaqiiqda in horumar laga gaaray xuquuqda dadka madow. Dilalka ka socda Mareykanka waa in la joojiyaa oo la joojiyaa hadda. Waxaa xilkii kala wareegay Donald Trump oo masraxa siyaasadeed soo fuulay markii uu muran ka keenay in Barack Obama uu ku dhashay Mareykanka, eedayn aan waxba ka jirin. Arrimo badan ayaa sabab u ahaa guushiisii 2016, laakiinse Trump waxaa hubaal ah in uu ka faa'iiday madaxweyne madow oo caddaanka qaar ay doonayn. Mareykanka hadda waxaa gilgilay 3 dhibaato oo isku mar dhacaya. Waa cudur si weyn u taabtay dadka aan caddaanka ahayn, dhibaato dhaqaale oo iyana si ballaaran u taabatay dadkaas, iyo deganaansho la'aan ay sababtay arxan-darrada ciidamada booliiska ah oo si ballaaran u taabatay dadka madow. Akhyaartu waa mahadsantihiin. Waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe noo saartiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.